وسلام يا قدوميها إسكاشيغا كوين كيسا يو مدحوينياش كلاوا مركز صدحات حوغيها مع وكيل حوغيها جود مدن ميكل كيتن أو سبوتس في عن شغل هاي إن أصلا إنه هدي لهاي له مدن يالي مروين مركز وجوه رئيسه عن شغل الصومالي يعني لحظة كي مركز حرية الغاتين ويتشون أنا إن يرى هذا أنا مرينا يبغى كي والشن إني سنة ضد كالكم فردية هي ملها واقع نولين با مركز حرية الغاتين سفي عن هي وفرحني أنا ولا لي يرى عن حين واحدين حريق الدنيا وفي عنانه ما شفت هاي صلاحين مركز كل هذا يقول إنه حمري عرض على النمط صوفة حمي waxana walgii arkin iyo taksiyaal iyo dawlad iyo nal baxay ayaan aragnay ilaa waxa ka nimid baadiya ka nimid qurbo kala mudug iyo galguduud iyo meel ka shisheeyo ka nimid dawladii sidaas ahayd markii la gaaray 68 culays baa fuulay waxaad moodaa sidii farxadii tirada badnayd oo aad iyo aad maaragtay ummadda u soo dhaweysay in xoogaa gabaabsay markaasaa waxaa la oran jiray Soomaaliya waxaa loo bixiyay qabrigii mucaawarooyinka annagoo halkaa taagan oo sidaa dhageysana ayaa kacaankii yimid 69kii runtii u dardargeliyey wax badanna waa la qabtay positive iyo negative labadaba ha lahaado laakiin waxyaalaha maaragtay horumarka oo markaa yimid ba aad iyo aad u badnaa inkastoo waqtigu dheeraa sida oo waara u sheegay oo kale wax ugu muhiimsanaa waxa la qabtay oo kacaanku qabtay dadku wax kale u fasiraan af Soomaaliga la qoray ayaa wax kasta ugu muhiimsanaa iyo horukacii tirada badnaa oo la sameeyey dekadahan u jeedaan oo Soomaaliya iyo airborada waagaas la wada dhisay wax yar ayaa ka horeeyay kacaanka hormarinayaa waxa ka horeeyay Berbera Kismaayo ka horeeyay laga bilaabo xamar iyo wixii ka dambeeyay kacaan gudihiisa ahayd laftooda aad uma urdin oo colaad badan baa jirtay oo labadii dhinac laakiin waa la soo shaqeeyay wariga dhamaantii 1990kii waa tii intiina burburtay sidii ragga iga horreeyay u soo sheegeen ama uga hadleen wixii ka dambeeyay arrinku wuxuu noqday dib u heshiisiin wax la yiraahdo bal dib u heshiisiin definition maleeda ma dhamaataa horta ma dhamaatay iska socotaa had iyo jeer waxaan xasuustaa carta waa shirkii dib u heshiisiinta 14aad baa anigu dadkii ugu horreeyay oo carta ka shaqeeyay waan ahaa runtii wax badanna ka qabtay shirkaas qabsoomo haddana shirkii 14aad baa kii ugu dambeeyay oo aan qabtay aniga oo soo maray wuxuu ahaa kii galmudug iyo halsuna oo 8 bilood ka hor ahaa waxaan islahaa intaas odagaagi soo maray tanba haddaad qabatay aad u dhib badnayd waxa lagu oran doonaa waa mahadsantahay wax igu tankii qof iyadoo ma hayo dawladdii federaalka ayada guusha horteeda ugu soo hooyay inta la soo qaaday madaxtooyada lagu saxeexay oo la isla tagay Dhuusamareeb oo wax walba loo xafladeeyay waxay ugu bedeleen xaqo inuu baxaa kelimad la yiraahdo waxay u noqotay hal iska madaxda federaalka waxa weeye xaq inuu baxaa waay wada xagee aad odag waa kii dadka soo dhaweeyay waqti dambe uu tartama uma harin intii yaray oo maaragtay uu ku goobtay wata intii oran lahaa war bal wixii ku haray waqtiga kan meeshaan isaga sii dhumayso aad iyo aad bay nasiib darro tahay haba haddii arrintu ay ku soo maaragtay ku soo foorsatay ala kulli xaal Soomaaliya dib u heshiisiin waa u baahan tahay laakiin dib u heshiisiin ma dhamaato waana in ay dib u heshiisiinta meel kasta iyo labadii wada socotaaba labadii heshiisiin ka heshiisiso heshiisiintu waxay ku timaadaa labada qof oo la heshiisiinayo haddii midkood samro waxbaa ka hagaagan haddii midna samri waayana waxba kama hagaagaan
waxa halkan la gaarsiiyo weeyaan waxa kale oo hadda waqtigan la maraayo ragii hore aad uga hadlay ugu horeeya maalan dastuurka oo kale 20 sano la soo dhaafay dastuur baa la sameynayay labadii biloodba mar baa Naivasha la tagaa mar Nairobi baa la tagaa mar meel kale la tagaa hatta xamar kuma ansaxo weligii shir dastuurka looga hadlayo xamar kuma qabo waxaan la yaabay mar walba meesha ugu sokorayso lagu qabsaa waa Nairobi then Naivasha iyo Kisumu halkaas u sii socdaa wax la yaab la waaye marka dastuurkaas anu qolo dhamayn doonta anu garan maayo una malayn maayo dhamaanayo sida soo socota oo u jeedo ma dhamaanayo marka jeer inta loo yaro Soomaaliya wartabanka qodobo difference-ka u dhaxeeya kii 60 iyo midkan baleega inta kale u baahay wuxuu u baahan mid Switzerland wuxuu u baahan mid Jarmala wuxuu u baahan okay adduunka federalism waa soo kordhay wax kale meesha ma soo kordhay see laga yeelaa federalismka inta u baahan yahay wax weyn oo tiro badan iyo baarlamaanka cadadiisa wax la mid ah waxa uu isku khilaafsan yahay aad buu yeeliyay dastuur dhan waa sida 12 qodob baa khaasa inta kale adduunka dhan waa arar iyo wax isku mid ah diinta iyo nationalismka waxa weeyaan marka aan waxaan oran lahaa dastuurka loo duceeyo soo soo aruuro waxa ku xiga oo hadda maanta ay tahay anaga dhibka ugu weyn haysta waa amniga amni shalay oo waqti ugu dambeysay saaka la soo wacay qaalbuur iyo meesha la yiraahdo matabaan dhexdooda waxa laga watay 6 iyo 2 oday waxa la aaday qaalbuur waxa geelada qaalbuur bay aadeen ma warra shabaab ku gurtay qaalbuur bay la tagay ma laayeen ma wax kale ka rabaan ama waa leeyayaan ama waxaan rabna sameeyay leeyihiin markaas anaga fidna la soo galayaan meel kastana waa saas ma aha anaga kaliya meel walba saasta waa laga hadlay anaga waxaan statistics aan sameynay ilaa 10,000 oo ciidana oo hubaysan oo indhihii sawirkoodii iyo indhahoodii iyo teleefoonadoodii aan monitor galeen oo hayna oo database u sameynay 10,000 oo ciidana oo hub rabin laakiin raba ammunition iyo logistically iyo mushaarada loo helo inta anagu haysana ayaa odayaasheeda shacabkeegii shabaabka inta uga soo waxaasna waxa u sababa hadda male awood ma hayno logistic male shidaal male gaadiid male dawladda federaalka haddaan u sheegnana meesha laga hadlayo inay Venezuela tahay iyo galmudug tahay kala yaqaaneen waa isku mid waxa soo weeraray hidaastay SS laga sheegay Suuriya yihiin iyo inay tahay balad mid ku yimid ilaa bay ka tahay inay war hayaan kan nasiibka nasaar bay hayaan maalinba midkan kaseel looga takhalusaa kan cayri kan keen yaa inoo haray dawlad goboleedyadii warkee ugu sahlan kee u hormarina kee u dabamarin wasiiradii waa la mid taliyaasha ciidamadu waa la mid wax yani ayagii gudahoodii intoodii gruubka baa hadda isaga daray oo midba maalin la siibaya iska badaa annagaan xoogaa ka fogfogo tuulooyinka joognay marka annagaa wana la qaataay inaan hadda ka gabanno oo musiis yaalla moohay waanu loo soo socdaa cadaaladda sharciga 60kii wuxuu qorayaa qofka qabanaya high courtiga markuu ugu yaraado 18 sanadood waa inuu maxkamad ka shaqeeyo 18 sano ugu yaraan inuu maxkamad ka soo shaqeeyo markay ugu yar tahay maxkamadda uu ka soo shaqeeyay mid hadduusan high courtiga ahayn waa inay tan rafaan ka tahay ay ka mid tahay 18 sano okay yaa doorta guddi baa doorta 9 qof ah oo iska doorta markii la magacaabo guddigaada garsoorka la yiraahdo anu waxaan oran lahaa
oo hadda qoladeedan maaragtay dowlad goboleedyada war hal inta magacaabano afar ku darsadaan dhahan oo aan bilowna annagu si maaragtay aan u helo wax la yiraahdo almeel dad ummaddu noo aragto inaan annagu wax keenno haddii kale barraal la magacaabaya cimrigiis waa 35 jir waa inuu ka weynaan shuruudaha waa inuu weliga maxkamad ka soo shaqayn sharciga waa saas jiraan halkii ay ka 18 sano soo shaqeeyo waxa weeye waa inuu weligii shaqayn waa inuu cimrigiis 40 gaarin ومشاكل ومشاكل بان haysta marka anigu inaan bilowno annagu oo dib intay isugu laabano hal magacaabo andana war afar ku darsada kuwaasaan noqonaya guddiga adeeg garsoorka qaranka aniga saasay ila tahay ku burqontay waqtigii waa gabaabsi afartii sano laba hartay labadii la rabay in la shaqeeyo way dhamaatay labadii sano midna election la diyaarinayay midna oo ahaa la warafiinadii ugu dambeysay baa hartay markii la dooranayay xildhibaanada iyo senatarada warqadii lagu dooranayay waxaa ku qornaan 2 sano ka bacdi qof kasta waa inuu xisbi ku jiraa axsaabtii meeyatalow waa iman doonaan xaliima soo wada nooca yihiin sida la isu dooranayo weli ma ogin 2 sano hartay waxaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed hadday leedahay xildhibaano hadday leedahay senataro hadday leedahay aqoonyahan hadday leedahay cid kasta wax garata 2 sano oo hartay dalka la badbaadiyo hal la isugu tago hal la qaylo dhaamiyo hal la isugu yimaado war xagee wax ku wadaan hal la yiraahdo dalka hal la badbaadiyo 2 sano soo socda waxa kaloo ka sii daran dalka Soomaaliya asxaabu iska lahaa waxuun ay ka dhaxayaan dawladaha Canada oo intay noo jirtaan aragtida inta aragtida Soomaaliya ku noosha oo in badan oo ku noolay meelahan hadda joogto maalin dhaweyd gabar Sacuudiga wax la yeelay daraadeed baan calaaqaadkeeda khatar u galay bal waxaan ka rabnaa waxaan la dhigay imaaraadkii waad ogeydeen oo aan boorash ka kaysan jirnay iyo saabuunta waad arkaysaan meeshay sii marayaan Uganda hadda ayaa hadda ka fiirsanaysa in ciidamada Soomaaliya jooga intaas loo idin korinayo waxay ka fiirsanaysaa in ciidamadeedu ay sii joogaan Soomaaliya waad ogtihiinoo min nala joogtay hadda dhowr iyo 10 sano haddaan marka dawladihii yar aan xoogaa asxaabta la ahayn la waayay haddaan dhexdeennii isweynay haddii 2 sano ku dhamaatay ka nasiibka nasaar anugu ma garan karo meesha aan hadda u socono saa daraadeed anigu waxaan soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed hadday ganacsato leeyihiin hadday maaragtay aqoonyahan leeyihiin hadday xildhibaano iyo senatar leeyihiin beesha caalamka wixii la fahamsiin karo dalka hal la daba qabto dalka waa socdaa waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga khayr Allah siiyo reer Puntland reer Jubbaland baan leeyahay هذيك أنا وديت وعيوة لو إن شاء الله يا شركة في عنا نواقبتين وأنا نوصي قبل دونتان وأنا سي وضينا وحنا نكسر إن نقصوا بهم إلى كل جيننا أنت نافر الذي أنت كلام ترى نسيا نور سود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته